deegaanka gaacida buuraleyda waqooyiga magaalada Ceergaabo ayaa laga dhagax dhigay cusbitaal dhammaystiran oo loogu magac daray Hiiliyo Hospital kaasoo ay dhismihiisa hirgelinayaan qurbo-joog ka soo jeeda deegaankaasi oo ku midoobay ururka Gold Group Organization waxaana deegaanka buuraleyda gaacid ka jiray baahiyo caafimaad oo aad u tiro badan taasoo ay dadka deegaanku dhowr jeer isku dayeen inay xukuumadda ula qayshadaan balse aan suurto gelinin isla markaasina ay u sii dheer tahay wada xumo ka jirta deegaankaasi waxaana munaasabada dhagax dhigay Hiiliyo Hospital ka soo qayb galay xildhibaano madax dhaqameed culimaawidiin iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo dhamaantoodba u mahadnaqay ururka qurbo-joogta ee hirgelinaya dhismaha cusbitaalkan Hiiliye waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha jahliyadda Imaaraadka Saalax Doolayare oo gartay in dadkiisa ugu hiiliyo hospitaal caafimaad oo aan buurta inta la eeg lahayn oo xitaa wasiirada Soomaaliland oo kamid yahay xag la toosiyay dhagax dhigay bartanay maanta ayuu noo hirgalay isaga iyo Saalax Doolayare jahliyadda uu hogaaminayo sida Anise Aadan jahliyadda faraha badan ee dhakhtarkan Hiiliyo Hospital dhisaya Ifraax Aadan dhamaantood waxaan leenahay soo dhawaada ku magacday Doolayare Saalax Warsame Aadan iyo dadka uu hogaaminayo iyo kuwa la maca iyo kuwa wax la wada intaana loo mahadnaqayaa halka kan wax laga asaasay oo xagga amarka Ilaahay ay soo mariyay in goob caafimaad laga sameeyo waxaan Ilaahay baa mahad leh waxaan loo mahadnaqaynaa cid ka soo shaqeysay in badan hawsha ku soo jiiftay maanta ay hirgashay oo aanu dhagaxii dhignay waa idinka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waxaanu idin leenahay hadalka badin maaye Ilaahay idinku guuleeyo waxaan ognahay arrinka caafimaadku iyo meelaha caafimaadka waa meelaha daruuriga ah ee laga maarmaanka ah ee xataa culimadu yiraahdaan waxa weeye zakawaadka qayb kamid ah waa loo sameyn karaa in lagu bixiyo meelahan oo kale caafimaadka ah dhulku waxa weeye malaha meel caafimaad deegaanka inta leeg marka qoladana Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo mariyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee tarkeeda iyo qiimaheeda Ilaahay xaqiisa ka helayaan in dadalka ka sii wadaan oo si lama laabtaan meelaha kale ee khayriga ah ee waxa weeye haday tahay dhulka Quraanka iyo haday tahay dhulka kale waxa weeye maadiga lagu barto intaba in la xoojiyo MCH weyn ama referral hospital inay u baahan yihiin ayay hayd in badan waanu doonay waana run waxba way sameeyeen waayeen xag la toosiyay iyo wasiiradii ka horeeyay kan iminka joogana wasiirkan waanu sheegaynaa waxaan leenahay meeshan wadankay ka tirsan tahay wasiir yimaada oo cashan wax ku kordhiyay ma hayno waliba kuwa caafimaadka kan maanta jooga waxaan leenahay isbitaalka weyn baanu sameeynaa shaqaalihiisii iyo qalabkiisii iyo maxay ahayd adiga laga rabaa wasiir qaadaan wuu baahan yahay oo in Doolayare iyo jaaleedu dhisayso maahe waa in wax lagu darsado isbitaalka ah dadkii ka soo shaqeeyay baan u sii mahadnaqaynaa sida ninka Saalax Doolayare waa meel badan oo khayriye ka shaqeeyay ninkaasaan aad ugu mahadnaqaynaa iyo inta la socotaba marlabaadka waxaanu u mahadcelinaynaa ummadda bixisay dhulkeedii ee garatay arrintan ay dan tahay ee wixii lacagada ay haysatay dantooda ka bixisay waxaanu leeyahay wax khayr la Allah idinku bedelo tageelada kaafidaanka kala waraabisay aynu dhaxda u xidhano arrinta xildhibaanku sheegay wadada oo kalena waxa weeye waa laf dhabarteennii in uu diyaar garowdan hawsheedii runta wanaagsan arday garteen maanta inay u soo shaqeeyaan oo dalkoodii wax ka dhistaan oo aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ugu mahadnaqaynaa waa soo dhaweynaynaa geedkan ay ahayd halkaan xag la toosiyay aanu ku casunnay maalintuu dhagaxa dhigayay laakiin kanu sidii maanta mid rasmi ah baan dhisanaa muuqda sidii xildhibaanku sheegay waxaan leenahay qolada wasiirka caafimaadka waxa laga sugayaa haday mushaar tahay shaqaale iyo haday tahay qalab kulay qolada caafimaadka ee ka shaqeysa caafimaadka أنا أفكر كهذا يا وحنا ديارنا هاي وأنا بلن قاعدنا إن الله شقين دونا عسال إن شاء الله وحنا قبل هذا أقان يا محيطي يا تاجرة يا تابر أنت وين ديارنا هاي وكهذا يا أفكر عسبتالك منهل ودكتور كل يجيه الرئي سيدا دكتور كل شيء وحنا بلن قاعدنا إن عدود يعرف
aanu la garab taagnaano cusbitaalka cusub halka laga dhisayo. maanta waxaan isugu nimid dhagax dhigga cusbitaalka Hiliya Hospital oo ay hirgeliyeen ururka la yiraahdo Golden Group Organization. ururkaasi waxay garteen inay si iskooda u dhisaan isla markaasina uga qayb qaataan horumarka deegaanka. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururkaas oo hogaaminaya Dr. Saalax Dhoollayare iyo sidoo kale Ifraax Aadan Xaraare. dhammaantiin waxaan leenahay aad iyo aad bay ugu mahadsantihiin. qurba joogta noo keentay ee ku soo tala gashay inay degmada Gaacid haleena khaas ahaan haleena inay nooga sameeyaan dhakhtar aad iyo aad baan ugu baahi qabnay. aad iyo aadna waan ugu cadileen ceergaabo iyo maydh mid ka dambe maydh iyo ceergaabo baa dhakhtar noo soo joogay goob caafimaad ma lahayn. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. qurba jooguna sidoo xildhibaanku sheegay bahasha halka haddaad hesheene halka kala haya oo halka uga sii dhawaada oo horumarka iyo iskacan qabashada iyo iskacan taaga iyo in dadka wax la taro oo wax anfacaya la taro runtii aad baan u soo dhaweynaynaa. haddaan bahda caafimaadka nahay waxaanu ka qayb qaadanaynaa inaanu deegaanka u tababaro dadkii ku shaqayn lahaa ama cusbitaalkan si rigli ah uga howlgeli lahaa xirfadlayaal caafimaad oo ku filanna waxaanu insha Allah ballan qaadaynaa haddii aanu jaamacadda sanaagnahay iyo bahda kale caafimaadka gobolkaba inaanu soo gaarsiin karo idinkana deegaanka waxa la idinka rabaa dadka sida u haysan lahayd. Barkhad Maxamuud Gedi, Bulsho TV, wararka gobolka Sanaag.